بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان إنه قدام بي وحوقها settings وحامخن حل عشر كل أدان إلوغنا وحنجعلها هنا إسوح سوسان و FTP جنب مخن FTP جنا مركو حسمين إن هدو إلهي رادو أصل لايف إن دوبنا أو عن ويب سايت كدوبنا ما دام أو local hosting كان وصل لهن FTP integrated. عشر كان مركز سؤال وحاجة جرتي هوري اللي ويديي وحنو ملاينا يا ناجح إنه هدي كومنتي أو ويب سايت كولي يحمل كومنت اللي قصة معيه أو خوف كان أو سوق قراء وحياله أو عن مناسب أهم سيدا معناها خو لوجو إلين كرا ريدي وحياله أو سوق قراءه كاسنو هو settings marka waxaan ka bilaabaynaa intaanan gaarin oo akhrinta anaga aan gaarin oo discussion kii reading aan gaarin permanent links maxaa loo isticmaalaa permanent links almost waxa waaye hadda saad aragtaan dashboard website ka qofka markuu uu furo halkan waxa ugu soo baxaya linkiga marka oo website ka uu leeyahay page-ka magaciisii يعني هادو construction page أو يهاي أما بوستي مجلسي با قيبتان دنكان هوري كسو بحيسا مركب وحاجر تقاب لو configure وحو كا قادنايا numbers أو page numbers ومو كا قادنايا for example هادو حربا إنا كل فتو about مركب هالكان انتو حو إسينايا قيبتان انتا كستان يرق حو إسيني إنو about كيجي ومش كسو سارو سيدا حدا أتعرقتان halkaas waxa igu qoran about marka waxaan baranaynaa maanta sida aan qaabkaas ugu configureynayno si about uu soo saaro oo san ugu soo saarin page numbers maxaa yeelay page number hadduu soo saaro Google search-ga ma qabanayo ma naqanayo tag system-kii iyo waxaas kuma qaadanayo wayna adkaanaysaa website-ka inuu noqdo searchable in the search engines inuu noqdo marka for that reason waxaan u sameynaynaa links waxaan ku dhufanaynaa setting kadib waxaan ka tagaynaa permalinks permalinks marka wuxuu na siinayaa common settings oo ah plain hadda wuxuu noo taagan yahay day and name oo una siinayo postigii iyo halka meesha uu ku shubayo meesha uu ku shubayo hadda idin tusinaya local hostiga markaad hosting direct aad haysato mar walba sanad walba wuxuu sameynayaa folder oo gooni ah oo sanadkaas ah 2021 haddii sanadkii hore ahaa 2020 uu sameynayaa si postiyadaadii ay u noqdaan categorized oo sorted ay u noqdaan marka mar walba hadii aad sameeyso ad website-ka aad sameeyso haduu u plain oo saaran yahay kana hadda idin sheegay waa ka b is equal 1 2 3 marka adu waxa u baahan tahay in 1 2 3 macnihiisi qofka ma garanayo for example hadda inta waxaad u baahan tahay haddaan kaas hadda plain aan saaro meesha about ay ahayd halkaas b number oo siinaya marka for that reason waxaan rabaa inaan barto sidaan aan blank ugu qaadi lahaa let us make it one more time si aad u aragtaan difference markaas u dhaxayna insha Allah one save gray changes ka hadda marka aan sameeyay blank bangay waxaan rabaa inaan aragtaan farqiga marka u dhaxaynaya hadii aan direct marka waxaad aragtaan had for this reason wixii aniga aan sameeyay already wuxuu ku leeyahay serverki ma laha maxaa yeelay muu soo qabsanayo for this side laakiin local hostigaaga direct haddaad u taagan tahay wuxuu ku siinayaa page numbers oo ka duwan oo isiinayaa for example let me do one more time saa aragtaan page id number 199 meesha haddaad oo iga siinayo about halkaas waxaa igu qoran page ID 199 marka page ID 199
haddii Google searchigi oo website-ki online hosting uu yahay wax macnaha ima samaynayso waxaan u baahanahay about-keygii iyo qoraalka about-kaas igu qoran searchigi inuu ii qaato any kind of search engine inuu macnaha markaas qoraalkeygii uu gelin karo oo popular oo ka dhigi karo website-ki as a tag ahaan laakiin hadda ID number any kind of number oo naqanaya wax lama garanayo for that reason waxaan baranaynaa permanent link markaan aan website aniga aan dhisayo waxaan ka qaadaya plain oo inuu ID number oo ii siinayo laakiin kan macnaha markaas ugu wanaagsan xataa day and time ma saaranay waxa aniga aan rabo oo ugu wanaagsan is this one waa post name marka wuxuu ii siinayaa saad aragtaan hadda for this side directly asaan automatic click siinaya midka adi halkan ka dooratid systemkiisii oo click ku siin maxaa yeelay halkan waa code systemkii oo available tags waa tagyadii yani taggan marka wuxuu sahlanayaa inuu search engine noo qaadanayo magacaas isla markaas oo siinayo sample post macnaheedu waxa lala jeedaa wuxuu siinayaa page-ka markaas aniga aan sameeyay hadda aan ku dhufto wuxuu siinayaa magaca page-kaas aniga aan sameeyay for that reason waxaan leeyahay post name-kayga marka waxaan imaanaya waxaan leeyahay Janj save Janjs hadda marka inta wuxuu siinayaa meesha date ID oo iga siinaayay wuxuu siinayaa post name-ki oo direct intaas kale asaas sameysana hadda already wuu update gareeyay halkan marka waxaan leeyahay update markaan update gareeyo direct wuxuu siinayaa on this side inkastoo macnaha markuu ku xiran yahay hostigii oo rasmiga markuu ku xiran yahay direct umbo update ku siinayaa saa hadda aragtaan halkan waxaa igu soo qormay WB about haddan any kind of system aniga aan tagan hadda for example page kan waa Yasmina Obama then if I click on waxaan u baahanahay halkaas inuu ka soo baxo Yasmina Obama oo page-kii maxaa yeelay waxaan amray postigii magaciisii inuu meeshaas ii soo saaro hadhow magacaas wuxuu ii naqanayaa popular all search engine inay qabsadaan contact us waa sidoo kale project haddaan hoos u dega hataa almost oo aan rabo inaan any kind of link inaan macnaha aan ka dalbado systemka aan ka dalbado wuxuu siinayaa linkiga markaas oo page-ka markaas aniga aan sameeyay ama postiga markaa magaciisa halkaas iga siinaya saa aragtaan halkan already waxaan taabtay hadda painting halka uu ka imaaday oo siinaya waa category kadib painting hadhowdi marka search engine mar walbaba adi aad samaysid wuxuu sameynayaa search engine wuxuu ku qaadanayaa waxyaalihii oo markaa uu ka kooban yahay website-kaagi intaas waa isla garanayaan filaya ilaahay amarkiisa ku dhacday kan marka waa links midka ugu wanaagsanna waxaan ka qaadanaynaa on this side post name waxaan soo haray marka reading sababta aan ugu kala bodbooda macnaheedu waxa in aan isdhexgelino oo aan mixed ka dhigno si aan hadhowdii midba mid aan ugu barano in a different side website-kaagi almost markaad aad website-ka aad dhisto static ID haddaad ka dhigato postiyadii waxaan niri cashirka kan hore aan soo qaadanay laakiin waan ku celinayaa any kind of latest posts markaan sameeyo oo halkan aniga aan ka sameeyo new postiyadaas waxay soo marayaan kor bay soo marayaan yani waxay ii naqanaysaa wax walba oo posts oo aniga aan sameeyay oo ilan posts iyo pages way kala duwan yihiin page-ka waa safxada oo يعني the main page لكن the main page hostis waxaa imaanaya these are the posts oo aan direct aan gelin karo waxaan oo dhan marka waxay ii naqanayaa posts oo ii naqanaya marka waxaan dalbanayaa your latest posts yani si ay page-ka macnaha waxyaalaha ugu badan oo qofka uu macnaha uu geliyo waa postiyadii marka static page ma gelinayo static page wuxuu ii naqanayaa hal page oo markaas taagan unba ii naqanayaa then for that reason u dalbanaya latest posts marka waxaan amraya bloggeygii page-ki inuu macnaha markaa uu i tusin karo the last 10 waan ka badin karaa haddii aanan rabin
in a long page inaan ka dhigo waxaan ku dhaafsan karaa almost for 5 pages yani si ay qofka macnaha markaas next page oo u siiyo blog aan u siiyo syndication feeds iyo most recent wuxuu isiinayaa asna 10 unbuu qofkan ku dhaaftay almost adaa markaa waxaa ka dhigan karaa 5 laakiin waxaan idinkula talinayaa inaad practice ku samaysaan si aad farqiga ugu duwan aad u fahantaan kan macnaha waxa waa in feed marka wuxuu leeyahay for example Google wuxuu leeyahay feed Twitter wuxuu leeyahay feed Instagram feed ayuu leeyahay marka feed news wuxuu macnaha markaa oo ku siinayaa include full text iyo except almost marka waxa u baahan tahay full text qofka macnaha inaadan rolling aadan u sameynin oo aad siiso full text aan ku siiso laakiin textigaagana inaadan feedka inaadan badinin oo aadan ka dhigin a lot in yaroo kooban 3 to 4 lines halkan marka waxa waa search engine visibility haddii aan halkan ku dhufto waa discourage uma sameynaya then I will not do it that one waxa kaliya aan rabo waxa waa inuu ii qaato search engine from indexing this side index waa page-ka marka oo hore uu ka bilaabanayo index inuu igu sameeyo oo site-kayga oo ku noqdo searchable visibility inta marka imaado waxaan sameynayaa marka changes haddii aad ka bedesho si uu kugu qaato website hosting uu kugu qaato waa inaad dhahda save changes kan kale marka noogu xigo waxa waaye maadaama hadda aanan wax ka bedelin waxaan sameynayaa discussion waxa waa su'aashii hore la weydiiyey oo commenteska ay ku saabsan tahay waxaa jira waxyaalo aad u fara badan oo website-kaaga aad ku xiri kartid sida formkii oo kale aad ku xiri kartid qofka inuu comment ka bixin karo default posting marka qofka uu sameynayo waxa waaye attempt to notify any blocks linked from the post yani qofka macnaha haddii uu macnaha subscribe ahaan ama linked post uu sameeyay yani saddexda ugu horeysa waa muhiim inuu macnaha check mark uu ku saarnaado qofka inuu notification uu heli karo hadduu blog already uu ka yahay in a new post haddaan geliyo subscribe hadduu yahay oo subscribe uu ku saaran yahay direct qofkaas inuu markaa arki karo kan kale halkan waxaa igu qoran allow people to submit comments on new post marka kan already waan ogolaaday markaan saas uu ogolaado qofka waxaa laga yaabaa waxyaalo oo macnaha oo qofkii oo website-ka lahaa dhibaya ama shirkadda waxyaalo oo macnaha markaa lagu dhaleeceynaya in qofka oo mar walba uu soo geliyo ama inuu markaa uu sameeyo scam things inuu sameeyo oo qofka macnaha postigi maanta dhan message oo nonsense ah inuu meesha ku imaado marka maadaama aad ogolaatay inuu qofka submit comments inuu soo sameeyo then already you accepted there laakiin halkana waxaa imaanaya other comment setting comment author must fill out name and email yani name and email already waxaa ku samaysan marka commentigii qofka si uu comment u geliyo waa inuu helaa waa inuu geliyaa magaciisii iyo emailkiisii kaas waxaa ka dhigtay marka must maxay anfacaysaa marka waxay anfacaysaa haddii aan website-ka already advertisement-geygii uu ku salaysan yahay like if I'm selling something marketing waa qayb ka mid ah ilaan qofkaas waxaan helay magaciisii iyo emailkiisii hadhow marka haddii aan sameeyo inaan advertisement electronic newsletter oo aan kusoo degsan karo plug-in newsletter waxay ii sahlinaysaa marka datadaas aniga aan aruuriyey databasekaas oo magacii iyo emailadii oo yani waxaa laga yaabaa hundreds of emails inaan aruuriyo marka waxay noqonaysaa for one click inaan one post oo advertisement ah inaan u diri karo thousands of people marka kan almost waxa waaye comment author must fill out macnaheedu waxa waaye comment qofka ma samayn karo haddii uusan magaciisii iyo emailkiisa uusan gelinin for that reason on by check mark u saaran users must be registered and logged into comment haddii aad ku qasabto uu leeyahay registration qofka waxnaha waa inuu isregistereeyaa si markaas loo helo oo u sameeyo comment oo u sameeyo haddaa check mark aad saartid qasaba loogu dhigaya kan kale waxa waaye automatically close comments on posts older than 14 days marka waxaan u baahanahay 14 days kaas qofkaas macnaha postigaas
hosting website wuxuu haynaya front endiga ila 14 days. After 14 days automatically will cross garaynaya. Adika ma baxay already commentiyada halkan on ba kalees halkan bay ku arursamayaan saad aragto laakiin automatically on ba qaybtaas front endiga ugu baxaya directly waa ka yareyn kartaa waa ka badin kartaa laakiin 14 days is enough. Show comments cookies wuxuu sahlinayaa website kaagi almost in qofka markuu soo galo cookies horta waa sidiisii ma hadaad wax aad iibsato ama website kaas aad furto already computer kaagi automatic waxa u galaya cookies wuxuu ku geedinayaa template app qofka macnaha marka hadii aad website kaas mar kale aad furto already page kaas wuxuu ku furmaya as a fast maxaa yeelay already wuxuu garanayaa documentiga aad markaas aad gelistay author yani fill up ku sameynaya halkoona ku keedinaya. For example, let me just say here waxaan idin tusinaya tusaale oo ah horta shaashadeedu waa aragtaan soma والله تمام يعني cookies ka si aw qofka uu buuxiyo waxaad sameynaysaa waxaad taabanaysaa ilan cookies ka soo xarata computer kaaga marka website aad furto inta lagu keedinaya waxa lagu keedinaya waxa leedahay temp waxa laga soo gaabiyay template ma soo baxay laakiin illa adiga aad percentage kala aad ku dartid percentage kala marka ku darto waxa soo baxaya already waxaan sameeyay percentage temp oo template laga soo gaabiyay kadibna waxaan taabtay percentage kale waxa ii soo baxay marka labadan shay already hadda saad aragtaan delayed cookies on a temporary files kaas internetka page kasta aad furto direct halkaas ku dejinaya illa systemyo kale waxa jira sida hadda libraries oo kale computerada libraries ka yaala marka furto marka saas u xirtaba oo aad ka tagto direct waxaas oo dhan asaas ka tirtiraa isma saxay laakiin qofku waxana hadda hal mar ma dhaxgali karaa you need just to do for this template kaagi template kan qofka wax walba aad furto halkaas ku geedinaya all the cookies macalliban waxaan maleynayaa oo maxalla shaashada ay cadiginta aan wax muujiyo kulay laakiin meeshii hada wax discussion setting kan kaliya uu taagan yahay masas ba ilaahay amarkiisa ku dhacday yiri cookies waa explanation ka sameeynaysa waa meesha ku calignaan kulay wax muujiyo laakiin dadka kalma ka warhay hadda ma aragtaan هذا اسبدلها هذا كسو علين كرتو في عنا لا بيش هي والله هذا عارف سمع شاشة كاشن كيجوكا عادي مرك waxaan marayay for example on this side a show comment is cookies sida cookies ka almost ugu save garayna inside your computer ka marka waxaan iri inta halka qaabkan u arki karaa waxyaalaha aan rabo ilan shirkadahan almost waxa waaye markaad website aad furto waxay u sahlinaysaa computer kaaga xogtiisii iyo systemkiisii si ay u qaataan hadda amar waxa loogu dhigay GDPR wax la dhahayo jiro oo AU-da ay soo saartay qofka macluumaadkiisii in la ilaalin karo oo loo xifdin karo marka waxa macluumaadkaas waxa kamid ah this cookies marka almost waxa ku jira part of your computer information yani qofka geolocation kaaga iyo system kaaga oo dhan yani uu u sahlinaya hadda markaad rabto inaad wax buuxisid sahlo kaaga dhigaya inaad full ku buuxin kartid automatic asaa ku dhameystiraya auto kan marka waxaan rabaa cookies-ka inaan arko waxaan sameynayaa start uma ku dhufsanaya kadibna waxaan leeyahay waxaan taabanayaa percentage waxaan leeyahay temp oo aan kusoo gaabiyay template marka haddaan percentage aniga aan ku xiro unbu folderka ii soo baxaya the last percentage markaan taabto then waxaa ii soo baxaya folderkii unbaa ii soo baxaya then direct marka folderkaasaan ku dhufsanaya on the top marka labadan shay kalena waxa waaye delayed
browsing history iyo delayed cookies saad hadda aragtaan cookies ka marka almost waxa waaye this is part of it waa meesha uu ku keedinayo waxaan rabaa marka inaan computerka ay idinka tusiyo qaabka uu keedinayo iyo nidaamka uu yahay for example filekaas hadda aad aragtaan up data almost waxa waaye waa file oo hidden ah oo u qarsan yahay systemka uu qarsan yahay iyo local tembigaas oo ku keed gareynaya direct automatic intaan hadda aad aragtaan marka most of the files waa file aniga aan markaas u baahnayn oo template oo information aan uu ku keedinayo wax walba aniga aan furo ama aan sameeyo then part of it umba ku soo qaaday halkan uu ku keedinaya then sawirada qaarkood oo website-ka aad markaas aad daawatay yani halkan ay kaaga soo baxayaan whatever it is yani any kind of template haddaa furto waxaa ku jira something or new hadhow marka waxaan sameynayaa haddaanan markaas aan u baahnayn then I just delete of it haddaan tirtiro website-adii aan hore u fiirsaday informationkii oo automatic uu heli lahaa marka oo cookieska oo direct ugu soo qaadan lahaa it will be difficult marka mar walba waxaan sameynayaa I don't need them this kind of template gebi ahaan marka inaan wada tirtiro oo aan totally wax walba aad computerkaaga aad ku furto template qayb copy ah unba meesha gelinaya then waxaan sameynayaa shift yaan qabanaya kadibna waxaan leeyahay delete ilaan uma baahni all this marka sababta aan shift u qabanayo waxaan rabaa inaan permanently delete inaan sameeyo waa 109 items uma ku jirta kadibna waxaan leeyahay yes waxa macnaha computerka oo markaas oo awood u leeyahay oo tirtiro then it will just take it out faylka qaarkiis wuxuu ku leeyahay admina u rabtaa marka dhamaanta ma ku sameynaya continue hore sii wada hadaan iraahdo then it will just go everything laakiin faylkan hadda wuxuu ku yiri waa ms admin waxyaalahaas oo dhan marka waxa waaye I don't need them marka tusaale idinku tusinaya kuwan kale oo maanta oo uusan wax ka qaban karin then ina ku celcelisay tagaysaa laakiin hadda fikirkiisii oo guud waa fahanteen meesha uu ku keedinayo cookieska waxa kale oo cookieska aad u sameyn kartaa for example inaad masaxdo let me just see this cookies waxaan kale ku tirtiri karaa shaashadeeda waa aragtaan filaya Soomaad ووجدنا absolute qaybta kale aan cookies ku tirtiri karo waxa waaye inaan halkan imaado waxaan leeyahay browser kasta aad furto ama Google browser ha noqdo ama Microsoft Edge ha noqdo yani waxay ku xiran tahay which kind of browser aad isticmaalaysid laakiin almost waxaan sameynayaa waxaan ku dhufsanayaa on settings marka imaado waxa aniga aan raadinayo marka oo aan rabo inaan direct aan meesha aan ka masaxo waxa waa cookies halkan sidaad aragtaan waxa igu qoran cookies and site permissions ma ku dhufsanaya direct marka waxa ii soo baxaya any kind of all sites oo marka aan rabo inaan permissionki inaan waxyaalihi aad siisay permissionka aad siisay all permissions halkan marka almost waxa waa ask first waxaan rabaa computerkeegi locationkiisi they already know locationka automatic uu siinaya marka waxaan rabaa permissionka wax aniga aan siinayo inaan aniga bestem gareeyo oo iraado will block it turn it off for example block this side allow this side laakiin hadda waxa permissionkeegi locationka hadda ask before accessing recommended inaan macnaha marka okay waxa kaliya aniga aan rabo marka waxa waaye ask inuu macnaha markaas i weydiiyo oo permission aan ugu weydiiyo inkastoo hadda ababka badankooda aniga aan soo degsanayno then always just is allow it haddii kale yani abkii direct kuuma soo degay khasaba lagaaga dhigaya si aad u isticmaasho inaad waxyaalo badan aad u allow garayso waa garanaya filaya marka cookieskan almost haddii aan raadinayo aan direct u raadinayo waxaan leeyahay cookies waxaan u baahanahay marka clear inaan sameeyo saa hadda aragtaan cookieska halkaas waxaa igu qoran clear
choose what to clear waxa aniga aan clear gareynaa inaan raadiyo marka ilaan waxaan raadinayaa hadda cookies ka raadinayaa then choose what to clear halkaas aan ku dhufsanayaa waxaan rabaa inaan masax marka waxa kaliya aan u baahanahay waxa waa from 13 sites umba signs you out from most side kuwa aniga hadda aan marka aan ku jiro waxa laga hadlayo adduunka waxa ugu muhiimsan hadda waxa waa data waxa laga hadlayo waxa waa cookies and other side data datadaas marka computerkaaga almost cookies ku keedinaya sababta oo macnaha marka oo qofka uu isticmaalayo cookies loo isticmaalayo waxa waa macluumaadkaaga datadaadii already in macnaha marka la haayo for example tusaale idin siinaya haddaan iraahdo one of the side zalando.com let me just say haddii website-ka aniga aan ku cusbahay wuxuu ii soo saarayaa almost inaan aqbali karo oo markaas aan cookieskiisa aan aqbali karo marka waxaa ka mid ah let me just show it to you webkii soo marana hoos oo ka weydii yeah saa hadda meeshan aad ku aragtaan this side inkastoo hadda oo Swedish aan oo igu siiyay waxaan ka bedelaynaa marka waxaan rabaa inaan idin tusiyo qaabka uu naqanayo .co.uk wuxuu siinayaa almost wuxuu raadinayaa geolocation system ku raadinayaa director marka wuxuu ku siinayaa focuska inaad accept garaysid halka marka waxa igu qoran waxyaalaha iraadinaya Zalando launch use cookies and other technologies to keep our sites reliable and secure يعني reliable and secure already waa garanay laakiin maxaa waaye to measure their performance good marka maxaa waaye yaa laga rabaa qofka performance si aad performance good performance quality performance lagu siiyo datadaada horta waa in la helaa location kaagi waa in la helaa waxa aad raadinaysid almost marka waxa fiirinaysaa meesha aad ka soo gashay wadanka aad joogtid already area aad ka sii joogtid waxa soo dhan cookies ka dhiibaya to deliver a personalized shopping experience hadda marka waxa lagu siinayaa shopping experience waxa aad raadinaysid marka waxa jiro waxyaalo ay yiraahdaan Google Lens kan marka ina accept garaysid that is okay marka ku dhufto you accept and agree that we may share this information with the third parties ilaahay amarkiisa ku dhacday marka already waxa datadaadii AdSense-ga iyo systemka adaa lagu xisaabtamaya wax walba aad raadinaysid adoo telefonkaaga ku hadlaya waxa arkaysaa barfuuna ka hadashay hadhoodii markaa jidka maraysid barfuunka aad ka hadashay advertisement oo screen-ka kaaga soo baxay aad marka waxa leedahay you just talk about this perfume you know your voice is money now taas amo anay door mar igu dhacday yani click lens ka dhaa ilaa awarkiisa ku dhacday marka haddii aad diididna macnaa website-ka yani ma isticmaali kartid miyaa mise si fiican kuu shaqeynaya mise waxyaalo badanaa laga helinaya haddii aan dhaho maya marabi waa dhihi kartaa yani ilaan waxa waa hadda GDPR qabanaya GDPR kan waxa waa almost haddaad diidid ma helaysid hadhow waxa aad raadinaysid mar walba recommendation lagu siinaya website-ka Zalando haddaan galo oo aan yani waxaan raadinayaa shoes haddaan ku dhufto already adi waxaad dhiibtay inaad waxa aad raadinaysid hadhow markaa mobilkay anaada computer aan ku jiraa sooma mobilkayga hadhowdii markaan galo oo already waxa le every kind of advertisement aniga aan arkayo waxa waaye shirkadihii igu tartamaya marka shoes asoo baxay maxaa keenay waxaas datadii adi aad dhiibtay datadaadana already waxa waaye you just share to the third parties kan maxay u isticmaalayaan such as our marketing partners ilaahay amarkiisa ku dhacday marka kaas waa ila fahanteena uma leenahay inta wali gudbin marka su'aal kan aan rabaa inaan ku weydiiyo cookies marka hadoo kale
وخصبنا أنا أو استعمال الصوت هذا أقبل إن أنا استعماله ويب سايت كود أنا ما باستعمال كريب صح؟ ما ويب سايت كود واستعماله كرتا وهو كيف سنكرتا لكن si lagu siiyo marketing partners adigu waxaad helaysaa hadhow Zolanda kobahan 64 pound iibinaysaa mala socota laakiin hadhow waxaa helaysaa shirkado kale oo challenge la sameynaya yani oo performance kale ku siinaya ayagana offer kale lagu siinaya oo different kind ah shirkadaas marka maxaa waaye AdSense Google ay wax ka iibsadeen Google was the third party then it will just distribute whatever data lagu xisaabtama marka adduunka is that one okay marka adiga choice malid mar kor iyo hoos maxaa macluumaadkaada ina bixisid maxaa laga helay kor iyo hoos waxay ku isticmaalaan directly ilan adi hadda waxaad dhihi kartaa set preferences hadda night dhan lagu soo qorin mugta yani no dhan ma that is okay hadda inta wuxuu ku leeyahay if you select that is okay you accept marka adi already no waxaad buttonku wuxuu ku saaran yahay oo diyaar uu kugu yahay that is okay مجدا ديارو كيا فعلا فعلا marka hadaa iraahdo marka halkan waxa igu qoran you deny if you deny we will use only the essential cookies hatta hadii aad waxa sii wada taasayat halkan waxa lagu raasi yani unfortunately you will not receive any personalized content مجدا you will not receive kaas waa laga celiyo marka كوريوس الماركت part of the marketing إلهي أمركيز يكون عاد إلهي أمركيز يكون عاد مركواكاس تاس لنا جودا جزاك الله خير كانوا هو قابك وح أوترتريسيد almost حدي public computers أداء استعماليسيد وحكلية أداء سمينيس هواية then autofill form that is the most important وحاسكلا أردن وكقاعدة كرتا on this side browser can all this computer can guess كاسك جلايا وحنسمينا يا outform data محيّلة outform data هدار الداتا إنا بوحية أما form أربعة إنا بوحية يعني مركان قرو direct أساعد مثلا إيميل كيجو هايا تليفون كيجو هايا أدريس كيجو هايا all of them automatic وبوحنا يا outfill وكاس مركان حنسمينا يا مركان كبح هايا وحنسمين I just come here the browse then waxaan imaanaa setting halkaana waxaan ka raadinayaa cookies si aan u masaxo out format waxay la socotaana filaya ilaahay amarkiisa ku dhacday qaybtaana marka aan ka qaadayaa out format check markiga already daa'iman marka ma saarna ma socotaa ana marka waxaan saarnayaa then waxaan leeyahay clear marka the last hour inta adaa joogta adaa garanaya laakiin mostly I do all the time I delay هذا انت out format وحو هايا 14 addresses 65 other suggestions وح الله لو يحب address and messages كو استعمالي قدام ودايركتي باسوردي اذا هذا halka saca ka aragtaan يعني 10 passwords oo aan u isticmaalay different kind of websites wa already was saved marasada website kaaga marka hadii computer kaaga more secure adi personal ahaan uu ku yahay then you can just use it لكن هذا كمبيوتر كلا هذا استعماليسيد ساس هذا أركتان أمبو سيف جرينا وهاينا قفك إمادنا هذا وحكوا يدينا أريد وكجرا أوكي ديجنا كم كله جرواي عشر كينا مركو حوا almost we should get it for this discussion كمركو حوا نسه لنا يا مهمة ده أنا قاعد جيدو حوايا hold the comment on the queue contains 2 linkiya marka waxa lagu soo diraya oo scam ah hadii linkigaas oo laba link uu ka bato or more uu haynaya website ku haynaya ma proof gareynaya malasota yani website-da kale oo comment-yada kale hore lagu sheegay waxa waaya comment author must have previously approved comment inuu yahay jag markaan saarnaya hadii manually approved uu yahayna yani qofkana macnaha approve garaynayo intan waxa loo jeedaa for example disallowed comment keys waxyaalaha aad meesha ku qoranaysid id address haddaa meesha ku soo dartid all of them meeshaan ku qornayo erayada mamnuuca ah oo aanan rabin as spam ahaan then waxaan dhigayaa comment moderation ku darsanaya
إلى هالك waxay ugu qoran when a comment contains any of the words in its content haddii intaan ay yihiin wixii kala ziyaadana ana ku soo darsanaya ay wax alla la wixii ay ah oo dhan oo qofkaas oo rabo inuu sheego direct macnaha ma soo diri karaba haddii ereyada noocaas ay ku jiraan ilaan systemkan CMS kan waxaan u sheegay haddii waxyaalo noocaas ay ku jiraan inuusan soo diri karin ilaahay amarkiisa ku dhacday wax su'aal ah ما شاء الله أنا ناس وقبل GDPR بحي تاجنتاي هذا استعماله GDPR waxaa soo saaray kulli iskoolaadka iyo isbitaalada oo dhan macnaha waa AU oo dhan qasab loogu dhigay Mareykankana wuxuu leeyahay GDPR albal laha General Data Protection Regulation okay marka waxa waaye nidaamkan ay degsadeen waa low umba qabanaya qofka hadii uu misuse oo u isticmaalo yani your personal data okay marka hadii aad form ada buuxinaysid hatta macnaha in England almost waxa waaye wax ada buuxinaysid waxa xaq u leedahay inaad dhahdo yani this one it cannot be used يعني advertisement system dhan loo isticmaali karo marka website-yada qasab waxay ku yihiin waa regulation ka AU inuu qabto GDPR kaas ilaahay amarkiisa ku dhacday any more question عمو هذه أبنا username يباسر إن website كوسمينه سو سمين كنا سو قف كست وسكرولج يستقرأ هذول username كيس يو باسور كيس وجوجل ويب سايت كين كاس وحن سميسان كرا LMS وبلاك إنذا أما إي كوميرسي عن كده جنايا إي كوميرسي log in system عن سمينا يا for example forum عندنا كنت سينايا هل كان وحي قرن ويب سايت كان هو نورمال ويب سايت عادي او شركه اهان هو لكن حدان ربا ان اي كوميرس انيغا ان ku daro black in oo aan practice aniga aan ku sameeyo ma sameysanayo hada qayb waxaan rabaa waxbarasho inaan ku daro oo qofka inuu iska register gareyn karo hadhow hataa markuu comment sameynaya waxaan